واتاي ماما جواهر marka hore soo dhaw siina chief Jawahir Maxamed Muuse waxaan soo gaadhay baraha bulshada ka aragnay in geeridaadii lagu soo daawacay baraha bulshada arintaasi ma ka waraysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت شذا وعليه الصوماليين نزل في المقال في نقل في التقانة والسلام يا. إذا حكتنا محاويان وهم عبد الرشيد سيدا شيكتي وحالي سو شيغي oo dad badan ay soo tacsiyeen inaan geeriyooday oo geeri igu timaatay laakiin geeridaas oo been abuur ah oo dad ay iska faafiyeen ama dhintana waa ilaahay nin walbana taariikhdiisa ka dhimanaya aniga waan noolahay bulshada Soomaaliyeedna magacan ka dhaxleeyahay inta uu shaqeyn karana oo soo shaqeeyay dawladda oo shaqeeya meel walbana transfer waa lagu siin karaa aniga waxaan joogaa Istarehe sub county meesha aan joogay jidkun baan dhinaca loo goyni dhinaca balan joogaa laakiin ma dhimanin waan noolahay waa tahay chief Jawahir muddooyin ku dambeeyay xaafadda Islii dhaqaaqaagii lagu ma arag bal muddo transfer qaatay iyo meesha hadda ku soo tahay ma sheegi kartaa Cabdirashiid oo aniga waxaan ku suganahay Istarehe sub county xafiiskayga xuruntayda Istarehena waxay ku taalaa waxa hadaan maapkeeda ku jooreeyo waxay ka bilaabanaysaa Muratina Road inta aban roundaboutkaas ilaa Pumani Maternity Hospital wixii geeska ka jiro ilaa ka townka ilaa ka South B waaye marka aniga waxaan ka joogaa location la dhaho Ngara location wuxuu ku yaalaa boostada agteeda roundaboutka Equity Bank guryahan Bomayangu iyo Gurnana Hospital iyo ilaahay kuma darnaade waxa soo dhanbay hoos imaada dad badan oo Soomaaliyeedna waan is aragnay waan u sheegay inaan geeriyoonin xafiiskaygana meesha ku yaalo waa halka shaqada waan noolahay waa tahay haatan waxa ka socda ololaha lagu faraha qaxootiga lagu saarayo ee ka socda magaalada Nairobi iyo ismaamulada kala duwan ee dalka haddaba Jawahir meesha aad haatan ku sugan tahay Ngara aad tiri Istarehe sub county arimaha faraha ka saarinta qaxootiga ma ka socotaa walaal si toos ah uga socotaa farahaas qaxootiga waxaan bilownay 29 bishii aan bilownay intii ilaahay ugu talagalana hadee oo dhalinyaro waxa u badnaatay Soomaaliyeed oo iska xanibneed oo hadee sharcigan u xanibnaayeen oo muddaba ay iska daalaan dhacayeen oo hadee noloshooda maareen waayeen hadee inta documentkooda wadatan waa la siiyay inta kale aan wadanin hadee diiwaan geliska kale uu socdaa muddo 3 bilood ay socotaa meeshaasaan joogaa wayna ka socotaa meeshanada waa tahay maxulfa dagaal idinka dhaxaya jira oo haatan soo gelinaysa baraha bulshada waayo sida ka dhawaajiyeen dadka qaar waxa jira in magac la isticmaalay uu yahay magac nimadow ah balse qofka soo qoray uusan qofka saxda ah uusan ahayn balse ilaa hadda qof laga sheegay ma jira oo ku aadan qofka soo tabiyay geeridaada baraha bulshada soo dhigay Cabdirashiid horta ma dhinto waa ilaahay anigana hadda af bilaadan oo qofka Jawahir way dhimatay kuma dhimanayo teydon baan sugayaa ani taas waa ka gaabsanayaa waxaan ka dhigi kara male waxay noqoto wixii aniga habaaray oo dhimasho igu habaareen hadda asagana ma noolaanayo meeshaan aniga maran buu marayaa taasaan ka leeyahay waana ka gaabsanayaa waa tahay aad iyo aad u masantahay siina chief Jawahir oo haatan ku sugan Istarehe sub county gaar ahaan locationka loo yaqaan Ngara ay heetaasi oo haatan ku sugan halkaasi waana chiefka haatan laga dhawaajiyay in ay geeriyootay balse aanan geeriyoonin ee haatan ku sugan locationkeedii iyo shaqadeedii dawladda aad iyo aad u masantahay Jawahir adiga mudan walaal